qaar qooqay oo kibray oo basharku ka hadhsan waayey ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sultadiya waxay hayeen maanta ka siibeen oo aynu arkaynaa. binu cali oo ka talin jiray tuunis, shalay ahayd markuu xijaab diiday, shalay ahayd markuu salaad diiday, shalay ahayd markuu ay yidhaahdeen masaajidka marka la gelayo waxay keeneen fikradda masaajidda in kaadhadhkan furo lagu galo. qof kastoo tukanaya kaadh baa lagu siinayaa si kaadhka aad u mariso la ogaado inta salaadood aad tukatay. dadku ay masaajidda ka baqaan inuu galo. masaajid haddaad 5 goor gasho dambiilaad. shalay ahayd markuu binu cali wuxuu soo rogay hablaha dhigta kulliyatu shariica inay basketballka cayaaraan iyagoo qaaqaawan cawradoodu ay muuqato. kulliyatu shariica hadda maaha kuwii meelaha kale qaawanaa maaha, waa kulliyatu shariica dumarka dhigta ayaa la leeyahay makshuufaat alcawraat iyagoo ah ha cayaaraan basketballka. kii isaga ka horreeya burqiba ahaa halkii yidhi ramadaantu waa intaajkaa yaraanaya waddanka ramadaanta lama soomi karo, wax soo saarka waddankaa yaraanaya marka ramadaantu ma waddanka laga soomi maayo buu yidhi. dabeetana intuu kulliyada ay ka baxaan caskartu, kulliyada militariga, kulliyat alxarb, intuu soo galo oo saraakiishu fadhido ayaa waxaa lala daba socdaa killi shaah oo Chinese ah. dabeetana waa ramadaan intuu ugu shabaabo yidhaa cab, qofka cabbi waayo waa la dilaya ma waa la xidhaya. waa ramadaan wuxuu leeyahay intaajka waddankaa yaraanaya, waa idinkaa saraakiishii waddankaa waa in idinka laydinka bilaabaa cabtaan. banu cali intaan beledu ku kicin dooda miiska saarayd waxaa ka mid ah aadaanku inuu muscij yahay oo dadka laga joojiyo, aadaankan tirada badan leh in la kala joojiyo. kii caynkaa lahaa ayaa ilaahay ku soo kojiyey markaasuu isa soo taagay isagoo leh fahamtukum isagoo leh waan idin gartay waxa aad doonaysaan, hana garane tag baa lagu yidhi. markaasuu duulay. dunida ilaahay ballaadhan baa meel qaadata la waayey. kuwii ugu dhadhowaa markuu cirka maraya yidhahay hanoo soo gelin, yurub oo dhan baa soo eriday. shidaalku intuu ka dhammaan gaadhay buu maalda fadhiistay. maaldaa tidhi shidaal baan kuugu shubaynaa na dhaafo. dayaaraddaa mar kale loo shidaaliyey. waa duulay haddana mooyi sacuudiga cimro iyo daa wuxuu sheegtay ee sacuudiguunbaa la keenay markii dambe. addunya kullaha ninkii shalaytoo dadka diidanaa in xataa salaad la tukado ayaa meeluu cagadhiga adduunka ka waayey. waxay leenahay haddii fircoon ilaahay leeya falyawma nunajiik bibadanik litakuuna liman khalfaka aaya, aayaddu maxay ku gabagaboobaysaa? waina kaiira min annaasi can aayaatina lagaafiluun baa ilaahay yidhi. markii fircoon badankiisa laynoo reebay si ay dadku uga cibro qaataan ayaa haddana rabbi wuxuu leeyahay dadka in badan baan ilaahay aayaadkiisa arag boo ka dhigala haafila. kuwii shalay caynkaasiyo maanta ooyaya ama baryootamaya markaad aragto inaad haafil noqoto maaha, waa inaad ilaahay aayaadkiisa fahamtaa, inaad garato yucizu man yashaa wa yudillu man yashaa, inay isaga gacantiisa wax waliba ku jiraan oo ilaahay cidduu doono u karaameeyo uu sharfo, cidduu doonana inuu duleeyo. aalimiinta ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu aakhiro xukumayo dhammaantood, laakiin waxaan leenahay dunida waxa layna yidhi inay aayaadka si ay u fahamtaan qaar baa tusaale laydinka dhigayaa baa la yidhi subxaana wa tacaala. qofka marka la naco, nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa wuxuu leeyahay وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول ربي مركو قف نعه جبريل بال ربي الله الله ووحي هذا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه جبريل هبل وان عبار ربي هذا أدقون النع فيبغضه جبريل بنبي عليه الصلاة والسلام. ترى جبريل وان نعه الله مركو نعي إيه جبريل نعي أي ثم ينادى في أهل السماء، أهل السماء الله دواغا dabeetana waxaa la dhahaa ina allaha yubqidu filaanan faabqiduuh, ilaahay hebel waa nacay idinku naca, fayubqiduuna iyana waa nacan. samada waxa jooga oo dhammee malaa'igina waa nacdaa. uma tuudac lahu lbaqdaa'u fi lardi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. dabeetana nacaybkaasaa dhulka loo dhigaa oo dunidoo dhan baa nacda. degti niman طغاة هايو شلي كبريو قوقيو إلهي مخلوقات كيسا كو كبريي
oo dunida oo dhammi nacdaynu tiiviyada ka arag gaal iyo muslim cid tidhaahda war meel baanu ku seexinaynaa laga waayey miyaanay ahayn kuwii ilaahay nacay gaal iyo muslim la waayo qof meel seexiya la malja ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay waatbacnaahum fi hadihi dunya lacna wayowma alqiyaamati hum min almaqbuuxiin baa ilaahay yidhi qaar buu alla ka warrama markaasuu rabbi wuxuu leeyahay dunida cadha ilaahay baa ku dhacday aakhirana kuwa maqbuuxiinta ah ayuu ka mid ahaanaya kuwa la fogeeya ee aakhirana ka mid ahaanaya rabbi subxaanahu wa tacaala isagoo raba inaynu waana qaadanno markaynu aragno dad duqaad ahaayoo qooqayoo shalayto kibray oo ilaahay khalqigiisu uu ka fadhiyi waayey ayaa rabbi wuxuu ina leeyahy kam tarakuu min jannaatin wacuyuun wazuruucin wamaqaamin kariim wanacmatin kaanuu fiiha faakihiin kadalika waawratnaha qowman aakhariin famaa bakat calayhim السماء